kulan wacan daawadayaal halkan waa janalka Hubaal News qodobada wararka daawad doontaana waxaa kamid ah xogo kala duwan oo ka soo baxaya sababta ka dambaysa dib u dhac ku yimid kulankii codka kalsoonida loogu qaadi lahaa ra'iisul wasaare Xamse kursiga Fahad Yaasiin doorashadiisa dib ayaa loogu laaban doonaa aadan madoobe waxa uu ka digay heshiis qaad oo aan la soo marsiinin golaha shacabka faahfaahin kala duwan waxa ay ka soo baxayaan duqeymaha Kenya ee ka wada gobolka Gado qaybta dambe warkeena oo aad ku daawad doontaan dhul gariir sababay geerida ugu yaraan 250 ruux oo ku dhuftay dalka Afghanistan qodobada maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa warka janalka Hubaal News fadlan daawada hadda nagu cusubtaan nagu soo biro kamid noqo saaxiibada helo wararkaanu ku baahina janalkan aragtidiina halkaas nagu reebo muuqaalkana si share gareeya laagtiina waa inoo dhiirigelin haatan ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan kulankii la filayay in maanta ay yeeshaan baarlamaanka federaalka ee codka kalsoonida loogu qaadi lahaa ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa dib u dhac ku yimid iyadoo ay saameyn ku yeesheen laba arrimood ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa kulamo gaargaar la yeeshay xildhibaanada baarlamaanka isagoo ka codsaday in kalsoonidoodu ay siiyaan wuxuuna heystaa ballanqaadyo badan balse waxaa kulankan dib u dhigay arrimo farsamo arrimaha kulankan dib u dhigay ayaa waxaa kamid ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo safar ugu maqan dalka Imaaraadka Carabta oo socdaalkiisa oo laba maalmood loogu talagalay uu hadda gaaray maalintii saddexaad iyadoo aan la ogeyn xilliga uu dhamaan doono waxaana sidoo kale safar ku maqnaa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe inkastoo maanta uu dib ugu soo laabtay dalka Hubaal News ayaa fahansan inaysan jirin wax walaaciyo ah oo kala ah oo dib u dhigay kulankan mana jiraan wararka sheegaya inay jirto cabsi la xiriirta in ra'iisul wasaaraha magacaaban uusan taageero ka haysan xildhibaanada ra'iisul wasaare Xamse ayaana taageero buuxda ka haysta xildhibaanada labada aqal waxaana la filayaa in cod aqlabiyad leh lagu ansixiyo sida uu xog ku helay Hubaal News si kastaba maalmaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in codka kalsoonida loo qaado ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo kadibna soo dhisi doono xukuumaddiisa cusub geesta kalena kursigii Fahad Yaasiin ayaa doorashadiisa dib loogu laaban doonaa gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa markii ugu horeysay ka hadlay sida laga yeelayo kursiga hoob ee Barsideed 6 ee uu hore ugu soo baxay Fahad Yaasiin balse la hakiyay gudoomiyaha ayaa shaaca ka qaaday in kursigan go'aan looga gaari doono kala fadhiga hadda socda ee baarlamaanka Soomaaliya si loo soo buuxiyo haddii Ilaahay yiraahdo kala fadhigan hadda socda waa iclaamin doonaa si loo soo buuxiyo arin dastuuri weeye ayuu yiri Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in mar labaad lagu celin doono doorashada kursigan isla markaasna loo mari doono qaab sharci ah oo sidoo hadalku u dhigay kulay waxaan sameyn doonaa doorasho sharcigeeda dhameystiran yahay baa loo iclaamin doonaa doorasho in lagu celiyo weeye ayuu mar kale yiri Aadan Madoobe dhinaca kale wuxuu soo hadal qaaday kursiga uu baneeyay xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo loo magacaabay agaasimaha hay'adda NISA wuxuuna sheegay in si dastuuriyan ah oo u banaanaaday kursigaasi isla markaasna isagana la qaban doono doorashadiisa si loo buuxiyo xubinnimada kursigaasi wali waxaa jira kursi kale oo banaanaaday dastuurkeena waxa uu qabaa xildhibaanka haddii uu ogolaado ama loo dhaariyo xil aan wasiir ahayn xildhibaannimadiisa waa weynaya xildhibaan aad muhiim u ahaa oo haddana shaqo muhiim ah loo magacaabay oo la yiraahdo Mahad Salaad kursigiisii dastuuriyan ayuu u banaanaaday ayuu sii raaciyay hadalkiisa hadalkan ayaana ku soo aadaya iyadoo hore guddiga doorashooyinka dadban ee la kala diray uu hakiyay natiijada kursiga Fahad oo xiisad xoogani abuuray balse ugu dambeyn ka haray doorashooyinka ka dhacay dalka gaar ahaan midii madaxweynaha ee 15 May isla wararkii la xiriiray Aadan Madoobe ayaana ku gudu jirnay dhinaca kalena gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa ka digay heshiisyo caalami ah oo ay dowladda la gasho dowlado kale oo aan baarlamaanka la soo marsiinin Sheekh Aadan Madoobe ayaa digniintan soo saaray xilli haatan la hadalayo heshiiska qaadka ah ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya oo ay Nairobi sheegtay in dhawaan la saxiixayo Aadan Madoobe oo wareysi gaar ah bixinaya ayaa sheegay in marka hore ay xukuumaddu soo gasho heshiisyada caalamiga ah kadibna baarlamaanka loo soo gudbin doono si ay u ansixiyaan marka ay xukuumaddu soo gasho heshiis caalami ah baarlamaanka ayay u soo gudbin doonaan oo ansixinaya wax ka bedelaya ama diidaya ayuu yiri Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe Aadan oo wax laga weydiiyo waxa uga qorsheysan heshiiska qaadka ee lagu waday in 5 bisha Julaayo lagu saxiixo magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa yiri arrimaha diblomaasiyadda Kenya iyo Soomaaliya
waa inaga horeeyeen oo sida lagu kala tegay ma naqaano, sidaas daraadeed dib u eegis ayaan ku samayn doonaa oo hadda kuma degdegayno, laakiin mabdi'iyan waxaan kuu sheegayaa haddii heshiisyo caalami ah la galo waa in baarlamaanka uu ansixiya, ayuu yidhi. Kenya ayaa qarka u saaran in ay dib u furto suuqa jaadka ee Soomaaliya iyadoo la filayo in heshiiskan la saxiixo horaanta bisha Julaayo. Wasiirka arrimaha beeraha ee dalkaasi Kenya ayaa dhammaadkii toddobaadkan shaaca ka qaaday in wada hadal u dhexeeya labada dal ay galeen qaybtii ugu dambeysay iyadoo heshiiskaasi dhamaystirkiisa la filayo 2 toddobaad gudihiisa. Wasiirkan ayaana markii uu hadalkan sheegayay waxa uu ku sugnaa ismaamulka Meru oo ku yaalaan beeraha qaadka ee dalka Kenya. Soomaaliya ayaa hakisay qaadkii laga dhoofin jiray Kenya 2 sanadood ka hor oo ay taariikhda ku beegneed 19 Maaj 2020 iyadoo sabab looga dhigayo xayiraadda COVID-19. Haakintan ayaana si kastaba ahaatee aan marnaba laga qaadin kadib markii soo shaabaxay khilaaf diblomaasiyadeed oo u dhexeeya labada dal. Mamnuucidan ayaana horseeday in suuqa maalinlaha ee qaadka uu lumiyo in ka badan 50 tan oo qaad ah oo markaasi lagu qiimeeyay in ka badan 20 milyan oo shilinka Kenya una dhigmata ku dhawaad 200,000 oo doolarka Mareykanka. halkaad weli daawadayaal nagala socotaan waa Hubaal News. Faahfaahin kala duwan waxa ay ka soo baxayaan duqeymo ee Kenya ka wada qayb ka mid ah gobolka Gedo. Wararkii naga soo gaaraya gobolka Gedo ayaa sheegaya in Kenya ay kordhisay duqeymaha dhanka cirka oo ay ka fulinayso gobolkaasi oo hoostaga dowlad goboleedka Jubbaland, waxaana khasaaraha ugu badan uu soo gaaray dadka shacabka. Duqeymahan ayaa waxa lagu soo waramayaa in diyaaradaha Kenya ay si gaar ah ugu garaacayaan deegaanada Garzaal, Wargaduudo, Buusaar iyo Qadiijo Xaaji ee gobolka Gedo hoostagaan. Mid kamid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in duqeyntan ay ka dartay saacadii ugu dambeeyay isla markaasna waxyeelo ay soo gaartay dadka shacabka. Duqeynta saacadii ugu dambeeyay ayay sii saaciday waxaana inta badan ay ka dhacaysaa deegaanada Qadiijo Xaaji ilaa dhinaca meesha la yiraahdo Buusaar, ayuu yiri qofkaasi. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in marba marka ka dambeeyso uu sii kordhayo khasaaraha dhinacyada iyo dhaawaca duqeymaha ka dhalanaya. deegaanada la duqeeyay ayaana waxaa ku sugan dad reer guuraa, sidoo kalena waxaa meelaha qaar lagu arkaya dagaalyahanada ururka Al-Shabaab oo weli ku xogan gobolkaasi. Gedo ayaa waxaa maalmihii ugu dambeeyay kasoo yeeraya qeyladhaan ee shacabka ka muujinayaan duqeymaha ay diyaaradaha Kenya ka wada qaybo kamid ah gobolkaasi oo si weyn u soo laba kacleeyay kadib dib u doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. waa hagaagi daawadayaal iminkana waxaanu eegaynaa dhul gariir sababay geerida ugu yaraan 250 ruux ayaa ku dhuftay dalka Afghanistan. Wadanka Afghanistan waxaa ku dhuftay dhul gariir xoogan oo sababay inay dhintaan ugu yaraan 250 ruux oo intooda badan ku noolaa degmooyinka Barmala, Zirug, Naka iyo sidoo kale Gayaan ee ka tirsan gobolka Baktika. Saraakiil ka tirsan dowladda Taliban ka dhisan Afghanistan ayaana xaqiijiyeen in dhimashadu intaasi ka badan karto maadaama dhismaha dumay hoostooda looga shakisan yahay inay ku xayiran yihiin dad dhulgariirka uu saameeyay. Ila kale ayaana xaqiijiyeen in dhulgariirkaasi gaaray magaalooyin kamid ah Kabul oo ah caasimada dalka Afghanistan, waxaana goobaha caafimaadka la geeyay dadka badan 155 ruux oo dhaawacyo kala duwan soo gaaray. Madaxa maamulka iyo maareynta musiibooyinka Taliban ninka lagu magacaabo Maxamed Nazim Haqqani ayaa sheegay in musiibadu ay gaartay gobolada bari ee Qostu iyo sidoo kale Naghari ee wadanka Afghanistan, balse ma sheegin tirada dadka waxyeeladu gaartay. Maxamed wuxuu intaas ku daray in maamulka Taliban ee Afghanistan gacanta ku haya uu sameeyay intii karaankiisa ah howlaha dadka looga saarayo guryaha si aan waxyeelo ugu soo gaarin haddii ay dumaan, halka kuwa burburana dadka laga soo badbaadinayo. Dhanka kale wadanka Afghanistan xadka lale ee Pakistan ayaa waxaa laga soo sheegayaa inuu gaaray dhulgariirka inkastoo aan la soo gudbin khasaaraha ka dhashay, balse waxaa socda dadaalo kala duwan oo dadka lagu badbaadinayo. guud ahaan daawadayaal wanageynta warki oo aad kala socoteen janalka Hubaal News, fadlan daawade hadda nagu cusubtahay nagu soo biro kamid noqo saaxiibada hela wararka aan ku baahina janalkan aragtidiina halkaas noogu reeba muuqaalkan si share gareeya laagtiina waa inoo muhiim waana ku maasantiin daawashada iyo la socodka warka janalka Hubaal News. Hubaal News. Hubaal News. Hubaal News. Hubaal News. Hubaal News.